wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa habeenkii xalay waxa uu sheegtay in boqortooyada Sacuudigu ay Mareykanka ka iibsanayso nidaamka difaaca gantaalaha ee qiimahoodu gaarayo 15 bilyan ee dollarka Mareykanka. waana iibka suuragalay kadib dadaal ballaaran oo xukuumadda Donald Trump u sameysay sidii ay u xaqiijin lahayd hirgelinta heshiiska iibka gantaalahaasi. dadaalka uu gaarsiisnaa heer uu Donald Trump telefoonka kula xiriiray oo kaga dhaadhiciyay inay hubka iibsadaan boqorka Sacuudiga. sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters, Mareykanku waxa ay leeyihiin mas'uuliyiin Mareykana iyo kuwa Sacuudiyiin ayaa isnaantii toddobaadkan waxa ay la kala wareegeen dukumentiyadii dalabaadka iyo aqbalaadda. waana qorshaha uu Sacuudigu Mareykanka kaga iibsanayo 44 ka mid ah gantaalaha difaaca ee SAD oo ay farsamaysay shirkadda Lockheed Martin iyo weliba saarad kale oo gantaalahaasi lahayba. xukuumadda Trump iyo shirkadaha Mareykanka ee farsameeya hubka ayaa toddobaadadii ugu dambeeyay waxa ay xoog saareen sidii ay u badbaadin lahaayeen heshiisyadii dhanka hubka ee la galeen boqortooyada Sacuudiga. heshiisyada oo guud ahaan qiimahoodu gaarayo 110 bilyan oo dollar. waana toddobaadadii u dambeeyay ee ay bulshada caalamkuna ku hawlanayd tuhunka laga qabo in hoggaanka boqortooyadaasi ay ku lug leeyahaayeen dilkii wariyihii Jamaal Khashoggi. sanadan cusub ee difaaca gantaalaha ayaa waxa ay Sacuudiga iyo dalalka kale ee khaliijka ka taageeraysaa sidii ay isaga difaaci lahaayeen khatarta isa soo taraysa maalinba xigta ee kaga imanaysa horumarinta ay Iiraan ku hayso gantaalaheeda dagaalka iyo isticmaalka gantaalahaasi ee kooxaha ay taageerto Iiraan lafteedu. caqabadii koowaad ee fulinta heshiiskan ka hortumay laakiin arbacadii shalay golaha sanadka ee dalka Mareykanka waxay u codeeyeen in hore loo sii wado mashruuca ku saabsan go'aanka lagu joojinayo taageerada militari ee Mareykanku siiyo dalalka xubnaha ka ah xulafada khaliijka ee dagaalka kaga jira waddanka Yemen. waana go'aanka la filayo inay maalmaha soo socda si rasmi ah cod ugu qaadaan golaha sanadku. waxaana jirtay inay golaha Koongareesku ogolaadeen heshiiska lagu iibinayo saanada difaaca gantaalaha ee SAD sanadkii 2017. qisada fanaanada reer Masar ee saaxadda ka qarsoontay muddada bisha ayaa waxaa ka dhashay isweydiimo iyo su'aalo ku saabsan in qarsoomadeeda uu ku lug leeyahay ninkeedii ay kala tageen ee Turki al-Sheikh oo ah sarkaal ka tirsan mas'uuliyiinta diiwaanka boqortooyada Sacuudiga. 28 bisha Oktoobar ee sanadkan ayay ahayd markii ugu dambeysay ee la daalacdo dhigaalkeeda barteeda Twitterka oo xilliga ku sheegtay inay diyaarinayso album cusub oo heesaheeda ah oo ay ugu tala gashay inay ku beegto bilowga sanadka cusub ee 2019. waana dhigaalka barteeda Twitterka ee ay ku beenisay in la laayahay isla markaana ay xaaladeedu wacan tahay. waana dhigaalka barta Twitterka ee shakiga ka dhex abuuray taageerayaasheedii kuwaas oo sheegay inuu yahay mid khaldan oo lagu dejinayo cadhada dadkii la socday fanka fanaanadaasi. waxaana jira qorshayaal ay qareenada caalamiga ah qaarkood ku doonayaan inay qisada qarsoomidda fanaanadaasi ku horgeeyaan baarlamaanka Yurub iyo hay'adaha xuquuqda aadanaha. waana qareenada iyagu qaba dareenka ku saabsan in saameynta dhinaca kasta ee Turki al-Sheikh ku leeyahay waddanka Masar uu u adeegsan karo sidii uu gacanta ugu hayn lahaa masiirka fanaanada Amaal Maher, isla markaana uu culays ku saarayo qoyskeeda inaanay si caama uga hadlin xaaladeeda. iskaashatada dhanka muusikada ee dalka Masar ayaa iyaga laftoodu waxay diideen inay ka hadlaan xaaladda Amaal Maher iyagoo qiil ka dhigtay inaanay Amaal xubin ka ahayn iskaashatadooda. goorsii horeysay ayay fanaanadu waxay ku wargelisay dadka 11 milyuun ee qof gaaraya ee kala socda barteeda Twitterka in iyada iyo qoyskeedu muddo dheer waajahayeen dagaal adag kaasoo gaarsiisnaa heer la xiray istuudiyaheedii u gaarka ahaa la baabi'iyay xarun farmasi oo walaalkeed lahaa telefoonkeeda iyo kuwa eheladeedana ay ka heleen fariimo hanjabaado iyo cay isugu jiray. dadweynaha qaarkii waxay aaminsan yihiin in waxa socdaa ay yihiin isdhaafdhaafin lagu sameynayo qisooyin ay suuragal tahay inaanay xaqiiqooyin ahayn. faragelin kasta oo arrinta lagu sameeyana ay sii horin karto.